xaflad si weyn loo soo agaasimo ka dhacday masjidka Al-Hidaaya magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa la soo gabagabiyay saaka. xafladda waxaa ka soo qayb galay culamo fara badan oo aad iyo aad u fara badan oo ka mid yahay Sheekh Xuseen Jabuuti iyo Sheekh Ismaaciil ahna madaxa jaamacadda Geeska Afrika ee howlaha tabaqnimo ahna amiirka Sheekh Xuseen Jabuuti soo waxbaray. xafladda oo si weyn u dhacday xalay iyo shalay socotay ayaa saaka la soo gabagabiyay. xafladda waxay ku saabsaneed sidii howlihii sanadkii dhamaaday ay culamadii la diray waxyaalaha ay soo qabteen iyo say ummadda u gaarsiin diinta islaamka. tabliiqu waa culimada ugu badan ee dhammaan muslimiinta gaarsiisa diinta islaamka iyo koona socodka dhulka socod adeegsada inta badan. xalay masaajidka waxaa ka soo qayb gashay dad aan ku qiyaasnay 14,000 ugu yaraan ah. dadka ayaa xalay waxay ka kala yimid meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah: Jabuuti, Gaarisa, Somaliland, Soomaaliya iyo dhammaan gobolada dalka oo dhan. saaka waxa isku shaandhayn oo sameynaya Sheekh Ismaaciil Jabuuti oo u sheegay in culimadu hal sano iyo laba sano ay qaataan. wuxuu sheegay in hal sano iyo laba sano ay qaataan si ay u sii laban howlaha diinta ayna ka daalin. Sheekh Ismaaciil ahna madaxa Geeska Afrika madaxa Geeska jaamacadda tabliiqa Geeska Afrika ayaa sheegay in hal sano ilaa 7 bilood ilaa 4 bilood ugu yaraan ay qaadan karaan culimadu si u faafiyaan diinta islaamka ee u gaarsiiyaan dhammaan. waxay dhaheen tobtaan ku joogno waa tobtii nabiyaashii ambiyaashii ee Soomaaliya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku gaarsiin jiray ummadda diinta. waxaa la ka baahan yahay in agtiina maashiin wax walba sharci la kulantiina la dartii ku sabartiin ana diinta gaarsiisin. xalay waxay culimada diireen dhammaan in la duubo kaamiraasha laga duubo fiidiyoo laga duubo iyo sawiraba. waxayna ku macnaynaysaa inay tahay kulan diimeedkii ugu weynay ee isugu yimaado culimadu. waxayna sheegeen inay si kaamil ah wax isugu farayaan. xalay waxaa la qaybiyay dhowr iyo toban culimo oo loo kala qeybiyay masaajidada Soomaaliya ku yaala. qayb Hargeysa loo diray, qayb Boorama, qayb Baydhabo, qayb Jowhar, qayb Kismaayo, qayb Baraawe, qayb Muqdisho lagu reebay, qayb Jabuuti aade, qayb Kenya, qayb dibadda. waa xaflad aad u weyn ayay taasoo waxayna ku soo dhamaatay gabagabo iyo guul iyo bash.